ma jiraa qof walaalaha aan muslimiinta ahayn ka mida oo raba inuu su'aalna weydiiyo? waxaa jirto gabar walaasheen oo dhanka midig taagan. soo dhawow walaasheen. assalaamu calaykum sheekh. waxaan ahay hinduu, magacayguna waa amrita, waxaan dibloome ka wataa injineerinka. waxaan ku weydiinayaa su-aashan: hinduuska waxay rumaysan yihiin diintooda, muslimkana waxay rumaysan yihiin diintooda, laakiinse markay kulmayaan hinduuska isku dayi maayaan inay dadka kale diintooda ugu yeeraan, laakiinse muslimiintu waxay isku dayayaan inay dadka diintooda ugu yeeraan si ay u soo galaan. They are trying to convert in Muslims. hadalkaaga ayaan ku soo celinayaa maxaa yeelay su'aashaada ma ahayn mid xoogaa si fiican loo fahmayo. hinduuska markay la kulmayaan muslimiinta iskuma dayaan inay dacwadooda ugu yeeraan si ay hinduuska u soo galaan, sax? muslimiintase waxay isku dayayaan inay dacwadooda faafiyaan si hinduusku u soo galaan diinta islaamka, sax? walaashay, su'aashaadu waa miithaalka aan kuu sheegi doono kale. waxaa jira arday aadaya madrasada, rubamaa laga yaabo inuu dhigto qaybta 7aad ama qaybta 8aad. waxaana jiro arday kale oo marxalada diraasiga dhammaystay ee jaamacadda doonayana inuu diyaariyo qaybta masterka ee diraasaadka sare. tusaale ahaan markay kulmayaan labadaasi ardayga madrasada miyaa isku dayi doona ardayga magisterka raba inuu diyaariyo inuu wax baro, mise ardayga magisterka ama masterka ayaa isku dayi doona inuu ardayga madrasada wax baro? walaashay, ardayga madrasada miyaa isku dayi doona inuu ardayga masterka wax baro, mise ardayga masterka isku dayi doona kan madrasada inuu wax baro? walaashay, aniga su'aal fudud aan ku weydiiyey, su'aal adag maaha. su'aasheeda ma fahantay? idan ma ardayga madrasada ayaa ardayga masterka wax bari doona, mise ardayga masterka ayaa wax bari doona ardayga madrasada? dabcan ardayga diraasaadka sare. waad saxday. isbarbardhig ahaan annaga ka muslimiin ahaan waxaan ka dhigannahay ardaygaasi diraasaadka sare oo kale. sidaa darteed marka aan la kulanno walaalaheena yaryar ee naga da'da yar iyo kuwa madrasada ku cusub ee dhigta, shaqadeennu waxay tahay inaan macluumaadka kala qayb qaadano la jirkooda. maxaa yeelay ma jeclin inaan noqono anaaniyiin. aniga ma jeclo inaan noqdo anaani. sida aad ogtahaba dadka anaaniyiinta ah ma jecla ardayga madrasada dhigta inuu qalin jabiyo, laakiinse isagoo dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ka sheeganaya halkaas uga tegayaan. maxaa yeelay haddii ardaygaasi uu diraasaadka sare gaaro wuxuu qaadan doonaa shaqadii aan ku shaqaysan lahay. sidaa darteed waa anaaniyiin, ayaga oo kaliya unbaa isku ogol shaqada. sidaa darteed maasha allah annagu ma nihin anaaniyiin. muhiimadeennuna waxaa weeyaan inaan faafino risaalada xaqa ah. sidaa darteed markii aan la kulanno dad aan muslimiin ahayn sida hinduuska ama kirishtaanka ama buudiistaha, waxaan ku leenahay u imaada kelimo annaga iyo idinka dhexdeennaba aan u simannahay. waxaana isku dayaynaa inaan barno, maxaa yeelay annagu ma rabno intiqaas inaan ayaga la galno, balse waxaan isku dayaynaa inaan wax barno si ay u helaan marxaladda diraasaadka sare ama masterka. iyadoo arrintaas jirto annagu sidaa darteed labadeennuba waxaan noqonaynaa kuwa sameeya camal wanaagsan. camalkaas wanaagsanna waxaa lagu helayaa gelidda jannada. sidaa darteed ma jeclin inaan annagu jannada kaligeen galno, laakiinse waxaan jecelnahay in walaalaheenna ay jannada nala galaan oo ay nala jiraan. walaashay, ma jeceshahay inaad gasho jannaatulfirdows? ma fahmin. ma doonaysaa inaad gasho firdows? maya. ma doonaysaa inaad firdows gasho? maya ama haa? waxaan rabaa inaan galo jannada oo kaliya. kelimada firdows waa lafdi kale oo la mida jannada, laakiinse waxaa la helayaa qawaacidda qaar oo jannada lagu galo. sida aan ku sheegaba jawaabteedii hore, nisbada ay sheegtay kutubta muqadaska ah ee hinduuga iyo waxa ay sheegeen qur-aanka iyo baybalkuba, adigu haddaad doonayso inaad gasho jannada waxaa kugu waajiba inaad rumayso waxdaaniyada alle oo ilaahay inuu keli yahay, ilaahay subxaanahu watacaala inuusan lahayn wax lamid ah, wax u dhigma, inuusan jirin ilaah kale. walaashay, ma rumaysan tahay ilaahay kelinimadiisa? waxaan rumaysanahay hinduuga oo kaliya. waxaad rumaysan tahay ilaaha hinduuska? ma aaminsan tahay in ilaahay leeyahay wax u dhigma? maya, ilaahay ma lahan wax u dhigma. ma rumaysan tahay cibaadada awtaanta? waan rumaysanahay cibaadada awtaanta. ma waxaad rumaysan tahay cibaadada awtaanta? ilaahay hadduusan awtaan lahayn sidee marka awtaanta aad u caabudaysaa? waxaadna samaynaysaa wax kasoo horjeeda waxa ay leedahay kutubta hinduuska ee muqadaska ah. kutubkiina hinduuska ee muqadaska ah, safitaa saftara obnishad jabtarka 4 cadadka 19aad, suurtagal maahan inuu jiro wax ka sareeya ama wax ka hooseeya ama wax dhexdhexaada. ma lahan wax u eg
magaciisuna waa kii sharafta badnaa ee weynaa. yaajur fiidaa jabtarka 32 cadadka 3 ma lahan suurad, ma lahan mathiil iyo wax la mida wax u eg, ma lahan wax taalla ama sawira, ma lahan awthaan, ma lahan wax u eg, lama helayo awthaan weligeedba. miyaad doonaysaa inaad raacdo kutubta hinduuska ee muqadaska ahi waxa ay leedahay, mase ma rabtid inaad raacdo? maya, waxaan rabaa inaan raaco bulshadeenna iyo dhaqamadooda. mujtamaca oo keliya ayaad raacaysaa, diintaada maaha. diinteedu waa hinduuga oo keliya, waxaana rabaa inaan raaco. laakiin diintaada hinduusiga fiidaaska ayuu ku taagan yahay. ma akhrisa fiidaaga walaashay? maya. muhiimadaada maahan inaad wax akhriso. marka koormeed akhri doontaa, berri ama caawa? moogi, laakiin waa isku dayi doonaa. anigu waxaan kaa dalbanayaa walaashay inaad fiidaaga akhriso isla habeenkan. maxaa yeelay ma waxaad aaminsan tahay inaysan sax ahayn in habeenkii la akhriyo? ma jirto wax mushkilo ah, waad akhri kartaa habeenkii. fiidaaska iyo qur-aanka suurtagal inaad akhriso maalintii ama habeenkii, wax mushkilada kuma jiraan arrintaas. anigu waxaan kaa dalbanayaa walaashay inaad aaddo guriga, internetkana aad adeegsato ood qorto waxa aan ku sii doono oo masaadir ah. yaajur fiida jabtarka 32 cadadkiisa 3, safiita saftara Upanishad jabtarka 4 cadadka 19. mar aan joogay Kishanganj 2 asbuuc ka hor. barnaamijkeenu wuxuu ahaa mid ka kooban 3 maalin. maalintii koobaad muxaadaro, maalintii labaad su'aalo iyo jawaabo oo kaliya, maalintii saddexaad muxaadaro iyo su'aalo. markii waqtigii dhammaaday waxa ii yimid wiil hinduusi ah. wuxuu ugu yeeray, ma ogtahay Dr. Daakir, waxaad isku dayayso inaad sameeydo, waxaad ka sheekaynaysaa waxa iyo waxaadna isku dayaysaa dadka ugu dambeyntii aniga waxaan rumaysanahay oo kaliya Bhagavad Gita. aniga ma rumaysani fiidaaga. waxaan rabay inaan u jawaabo, laakiinse waqtiga ayaa iga dhammaaday. sidaa darteed waxaan u sheegay marka uu imaan doono berri insha Allah inaan ka dhigi doono qofka ugu horeeya ee hadla ee su'aala. maalintii xigtay markii aan fursadii siiyay si uu u hadlo, wuxuu yiri, xalayoo dhan waxbaan baarayay, waxaana helay culimada hinduuska dhammaantood. waana la yaabay maxaa yeelay waxay dhaheen dhammaan wixii aad tiri waa sax 100%. hinduusiga waxaa laga helayaa ilaah keliya. hinduusigu waxay ka hadlaysaa rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxa kale uu yiri, wuxuuna ii sheegay kale inuu habeenkaas oo dhan seexanin. sidaa darteed muhiimadeedu wuxuu ka yeelay mid sahla. sidaa darteed walaashay waxaan kaa dalbanayaa habeenkaani inaad tagtid. haddii aadan haynin xitaa qof aad weydiiso, ka baar Google-ka, ka baar Sheikh Google. annaga waxaan dhahnaa Sheikh Google. gal Google-ka ku qor adilada, isku day inaad hesho, berrina isku day insha Allah taala inaad su'aalo i weydiiso. waa mahadsantahay. Thank you.